بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته غيرت السلام يا دلهانتي مeel kastoo joogtaan soo dhawaada asxaabay soo dhawaada waayahay horta sheekadu way isbedeshay siyaasadii Soomaaliya sheekadu way isbedeshay fashil weyn ayaana dhici rabo waxaan u maleynayaa falkaana weyn oo siyaasadeed inuu qarxa ayaan u maleynayaa sababtoo ah ninkii Muuse Biixi Cabdi ahay ayaa ra'iisul wasaarihii Itoobiya heshiis ayuu la galaa yiri bad ayuu siiyay 20 kiiloomitir dherkeeda gaaraysa haddaba waxaa la rabaa aqliga horta inuu shaqeeyaa la rabaa Soomaaliya ha noqonina dad xoolo ah oo xare iskaga xareysan oo niman yacni danistayaal ah waxay rabaan ka samaysto ha noqonina arrintani mucaarad iyo muxaafid intaba Soomaalo idil ayay u taalaa waayo waxa lagu soo duulay waa geyigi Soomaaliyeed iyo baddi Soomaaliyeed weeye ma aha marka mucaarad iyo muxaafid ma kala laha baasha mid marka aan isku sheegna marka Muuse Biixi bad ma iibsan karaa bad ma siin karaa heshiis ma kula gali karaa dowladda Itoobiya jawaabtu waa maya xaqiiqda maxaa ka hadalna jawaabtu waa maya Muuse Biixi asaga dowlad ha sheegto laakiin wax la aqoonsan yahay ma aha dowlad la aqoonsan yahay oo caalamka aqoonsan yahay ma aha maamul goboleed ayuu xisaabsan yahay waxa uu dhigmaa Galmudug iyo Hirshabeelle iyo Jubbaland iyo Puntland ayuu u dhigmaa wax heshiis caalami ah oo gali kara haba yaraateena ma jirto arrintan marka dowladda federaalka waxbay ka og tahay haddaysan waxba ka ogeyna berri ayay caddaanaysaa shirka yacni berri isugu yeeray baarlamaanka oo madaxweynaha hortagi doono halkaas ayay ka caddaanaysaa berri hadduu xasan sheekh arrintani lug ku leeyahay iyo haddii uusan lug ku lahaynba berri yaa la kala ogaan doonaa haddii ilaah yidhaahdo waayahay aan soo laabta Muuse Biixi waxaan waa maqaar saar muuse dowlad kaleento oo shisheeyaa caqliga ha shaqeeya eega dalka dowlad ayuu leeyahay Soomaaliya oo la aqoonsan yahay oo xor ah oo aan la haysan oo maanta aan yacni gacan ku gabad aanan ahayn oo la aqoonsan yahay jumcada qurbaanka dhexdiisa ka diiwaan gashan waayahay Itoobiya ma ku dhiiranaan kartaa in marka Muuse Biixi oo aan loo aqoonsanin baalkii dowladnimo aan loo aqoonsanin oo Somaliland aan loo aqoonsanin dowladnimo heshiis ma kula gali karaa inuu yacni bad uu siiyo Muuse Biixi dalka Itoobiya caqliga ha shaqeeyo ma adeerayaalo yeynaan isdabaalinin sababtoo ah baddaan la siinayo qarash ayaa galayo dowladda Itoobiya qarash badan malaayiin xataa galayso soo ma lacagtooda marka ma dur cidlaay ku shubayaan ilaan dalka dowlad buu leeyahay federaal ah dowladda sidaas waxba ka ogeyn ya Itoobiya lacagteeda ma gubaysaa ma ku qamaaraysaa waxaa loo baahan yahay suurtagal loo baahan yahay waa maya haddii marka ayada marka ay ku qamaarayso lacagteeda waxaan ka arki doonaa xasan sheekh sidii uga farceliyaa iyo dowladdiisa taas ayaan ka ogaan doonaa haddii berri marka kulanka la isugu imaanayo caawa goor dambe ayaa la cilaamiyey oo maasajid loo diray xildhibaanada oo kulan degdeg berri la isugu yimaadaa la yidhi haddii marka xasan ee dhab ka tahay oo waxaan qorshahan waxba ka ogeyn dowladdiisa waxba ka ogeyn berri waxaa rabaa marka dowladda Itoobiya safiirkeeda Soomaaliya u fadhiyay in la raacdeeyo kii Soomaaliya loo yeerto Addis Ababa fadhiyay sababtoo ah dowladda Itoobiya waxay ku soo xadgudubtay qarannimada Soomaaliya ayay ku soo xadgudubtay waa in marka xiriirka loo jaraa safiirkeeda la raacdeeyaa safiirka Soomaaliyana yacni loo yeertaa sidaasna dalka yacni la yidhaahdaa dalka dowlad ayuu leeyahay Itoobiya waxaa nagu samaysay xadgudub qalad weyn ayaa naga gashay maamul goboleed camal noo ah naga booskaas noo joogo aan dowlad ahayn oo la aqoonsaneen ayaa kontrakta heshiis la gashay ya marka annaga ayaa naga dul booday xadgudub ayaa nagu samaysay waa eed weyn oo qabanaysa dalka Itoobiya eed weyn oo qabanaysa weeye haddii laakiin berrito arrintaas aysan dhicin oo safiirka aan la raacdeen Itoobiya oo nahi meesha la isugu yimaadaa arrinta dowladda waxbay ka og tahay sababtoo ah baalka ninkii la yidhaahdo Abiy Ahmed lacagtiisa magacilaa kuma gubayo berri waxaa qabanayso dalka dowlad ayuu lahay yaa heshiiskan kula galay Muuse Biixi la galay Muuse Biixi wuxuu yahay malaaliya saaxiib Muuse Biixi madaxweyne jamhuuriyadda federaalka ma aha
dalka federaal dowlad ayuu leeyahay taas ayaa qabanaysa soma haddii marka ninka la yiraahdo abi axmed lacagtiisa dur cidlaa ku suumaa nin lacagtiisa dur cidlaa ku subaya ma jiro arrintan haddii dowladda ay wax ku ay lug ku leedahay biriya la kala ogaan doonaa haddaysan lug ku lahayn biriya soo bixi doonto waxaa imaan doonto in la yiraahdo safiirka Ethiopia out in la yiraahdo kii Addis Ababa fadhiyo Soomaaliya fadhina loo yeerto la yiraahdo soo xaroo la yiraahdo sababtoo ah dambi weyn ayay ku dhacday dowladda Ethiopia xadgudub ayay samaysay ha qarannimadii ya ayay meel uga dhacday qarankii Soomaaliya ayay ku xadgudubtay marka arrintan marka waxa weeye kolaytaba Muuse Biixi iyo Abi Axmed adeeryaalo heshiis ma dhaxmari karo ha sharciyan heshiis ma dhaxmari karo Muuse Biixi wuxuu bixi kara malahan bad uu dhiibi kara malahan bad uu Ethiopia siin kara oo siin kara malahan ayadoo dowladda federaalka amar aan laga haysan warka hadin dhaco Soomaaliya warka hadin galo dowladda federaalka Soomaaliya waxaysan ogeen ya dalkani heshiis dal kale kulama gali karo waxa ogtihiin in isku tagay Djibouti isku tagay halkaas lagu wada hadlay Ismaaciil Cumar Geelle arrintaas wax ka dhaxaadinaya Ismaaciil Cumar Geelle sidii dalaal weey hadaad aragtaan dadka qaar waxay moodaan inuu wanaag wado laakiin wanaag moodo ninkaas dictator waay hadduu wanaag iyo uu leeyahay dalkiisa ayuu u nixi lahaayo xukunka ayuu wareejin lahaayo ka degi lahay meeqa sano falka fadhiya min xoog wax ku maamulay xoog wax ku haysta weey soma marka Soomaaliya marka waxaan leeyahay marka yaa lidin ka dhaadhicin marka Muuse Biixi ayaa Ethiopia heshiis la galay ayadoo dowladda aan ogeyn oo heshiis la galay dowladda Ethiopia ayadoo dowladda Soomaaliyeed aan waxba ka ogeyn ayay Muuse heshiis la gashay waxaasi wax aqli galaya ma aha wax suurtagali karana ma aha adeeryaalo meeshan qarash ayaa galayo dekadaani dhulkaan la baxshay 20 kiiloomitir la sheegayo yaa balaayiin lacaga galayso Ethiopia lacagteedan Ethiopia meel cidla ka soo meeso way ogtahay Muuse Biixi inuu dalka mas'uul ka ahayn Ethiopia aqoonsi aan ku bedelaynaa ay yiraahdeen fiirsha waxaas waa boojo hay dhultuna xeer ma kale yiraahdaan Soomaaliland waa dawlad aqoonsan yahay ayadaas contract heshiis la galay waxaas wax soconaya ma aha wax soconaya Soomaaliland waxa aqoonsan karta dawladda federaalka goyn karto caalamka xataa ma goyn karaan ma aqoonsan karaan ayadoo aqoonsiga aan ogolaansho aan laga haysan dowladda federaalka ee Soomaaliya marka waxa ogaan doonaa haddii Ilaahay yiraahdo arrintan berri marka sida dowladda Soomaaliya uga falceliso sida aad in sheegay haddii safiirka la raacdeeyo Ethiopia banaanka waa dowladda federaalka xadgudub ee Ethiopia samaysay weeyaan arrinkani وهدي سفيرك إثيوبيا لرعديو أو كي صوماليا لكنسدو أو علاقات كي لكرجرتو يا وايو دنب وين واي قرد وين واي دولديس شقينسو دولديس تاغنتahay ayaa la xadaya markaas heshiis waxa la galaya qof aanan heshiis caalami aan gali karin war hadii Muuse Biixi oo wax saxiix karo oo heshiis caalami oo gali karo ya Axmedooba gal lahay oo Kenya wax siin lahay oo qorqor heshiis gal lahay oo Cali Guudla waa gal lahayo daniya gal lahay markii waxaan imaadeen Realo yaan lidii caga wareejin Muuse Biixi wuxuu gadi karo iyo wuxuu dhiibi karo iyo wuxuu heshiis caalami oo oo gali kara haba yaraatee ma jirto sababtoo aan la aqoonsiya ma aha Soomaaliland waa maamul goboleed Soomaaliya kamid ah weey caalamkan saasa u dhigan Soomaa marka arrintan dawladdu haddii ay san waxba ka ogeyn berrito hadduu waaga bariyo waa inay ku dhawaaqdaa safiirka Ethiopia waa in la raacdeeyaa haddii la raacdeen waayo oo sheeko kalanta waa cambaareynaa iyo Muuse Biixi wuxuu dhiibi kara mal iyo dawladda warkaas deela timaado adeeryaalo timirba la faa ku jirto hay timirba la faa ku jirto oo waxay dawladdu wax ka og tahay oo ku dhiirada ninka la yiraahdo Abi Axmed oo qarashkiisa ku bixinayo meelas dawladda waxba ka ogeen Ethiopia qarashkeeda ku bixin mayso waxay dawladda raali ka ahayn
إثيوبيا بلايين لعاقو بحميسو تا أن هلا أوغادو هذا لا يا مركب وقت يجوا هذه وعنادو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.